الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ciwaan kan wuxuu la socdaa ciwaanka hore hore usoo qaadan oo ahaa yacni rules to solve linear differential equation by operating method yacni homogeneous function haddii la siiyo sidee wax xalinaynaa hore waxaan usoo barnaa rulkani koowaad oo ahaa yacni functionkaaga haddii yacni solutionkiisa uu kusoo bar saddex qiimo kala duwan inaad u qori kartid c1 e power m1 into x plus c2 e power m into m2 into x then m1 iyo m2 daadi m3 ay marka qiimaha kusoo bixi doona sandiga kusoo saaranayna si simple ah ama gacanta kusoo saari karin then marka maanta waxaan u gelinaa marka maadaama shalay saddex qiimo kala duwan aan helaynay oo qiimaheena -4 3 iyo 1 marka labaadna waxaa soo kala helnay saddex qiimo kala duwan laba qiimo kala duwan maadaama square uu yahay 8 iyo -5 example ugu dambeeyana maadaama uu cubic uu yahay waxaa helnay saddex qiimo kala duwan oo ahay 1 iyo 5 iyo 3 so in second rule marka waxaan ku bar doonaa marka haddii yacni qiimahaasi isku mid ay noqdaan saddex qiimo isku mid ah matan hesho kale ama laba qiimo isku mid ah hesho ama afar qiimo isku mid ah hesho haddii qiimahaaga isku mid ay noqdaan marka maxaa sameynaysaa marka sidee u xalinaysaa masaladaas waxaan leenahay marka yc into x waxay kula mid tahay c1 plus c2 into x plus c3 into x square plus c4 into x cubic plus c5 into x qaabkasaa ku socon doontaa macnaha halkaa inay ku ekaato qasab maaha c3 meeshaan anana matalan c4 haddaan ku dararno kala xalinahay plus c4 x ka laakiin waxaa noqonaa cubic noqonaa plus c5 aa matalan jirto kale ilaa ay 5 value kala duwan hayso kale waxaan leedahay c4 c5 e power I mean x power 4 plus c6 x power 5 plus c qaabkaas ku soconaya macnaha adiga calay tahay marka yaana si daba dheeraan marka inta badan cubic ku ekaa doontaa ama square kan ku ekaa doontaa waxaa ku dhici doona marka e power m into x saddexda qiimo isku ekaayeen ama labada qiimo isku ekaayeen ama afarta qiimo isku ekaayeen hal xabo kamid ah ka soo qaadanay for example let's do practically مثلا مثالنا أنا كلها ما هي سنة وكله step كذا سمينا محواه symbolic form هنا أو كله symbolic form محواه مركا d square minus 6d plus 9 whole into y بحي كله بتاع 0 قاب كان حلو كانوا عندنا symbolic form اللي يقانا حلو كنا symbolic form اللي يقانا مركا next step محواه مركا قيبتا نحو مركا اللي يقانا auxiliary equation كان مركا 0 لإكسي وما حق auxiliary equation كان مركا d square minus 6d plus 9 بحي كله بتاع 0 quadratic equation waa marka quadratic equation ka marka step waa gali kartaa simple by waxa uu shaqeyn kartaa factorizing by waxa uu shaqeyn kartaa by formula uu shaqeyn kartaa by completing square uu shaqeyn kartaa but simple ladaas u by scientific okay more taabanana marka more marka taabanana marka number 5 equation keena equation keena power kiis meeqo ka bilaabana labo ka bilaabana waxa lana marka power keena maadaama loo ka bilaabana 3 ayaa loogu taagan step marka maadaama marka power keena labo ka bilaabanayo meeqa solution ah karnaa laba solution kala duwan ah karnaa laba qiimo kala duwan step inoo soo saari karnaa marka okay godkani kooda waxa noogu taagan 1 godka labaad waa -6 godka saddexaadna waa +9 then waxayna soo baxday marka x1 keena ama d dan inoo la mid tahay marka 3 mar labaad equal tahay marka equation ku celinaa marka it means d da mar walba 3 ku la mid tahay marka labada mar waxay ku la mid tahay 3 soo marka waxay sanaa marka 3.3 ay sanaa marka d dan labada qiimadeeda waa maxay waa 3.3 solution keena laba qiimadood isku mid soo laabto qaacida marka maxay noqonaysaa marka yc into x waxay ku la mid tahay complementary factor ka oo kaliya yani particular integral maanta ma haysan anaga particular integral inaan haysan maxaan u cadeynaa qiimeena wuxuu leeyahay equal to 0 aan la sii equal to 0 maadaama la lahay r into x ma jirto macna r into x ma haysan r into x maadaama ay haysan b ay wax leedahay meesha ma imaanaysa idana marka complementary factor kaliya haysan complementary factor ka marka wuxuu kula mid yahay marka c1 plus c2 and c2 into x whole into e power m taada maanta waa imisa markaa 3x qaabkaas u qori doontaa marka okay waxaana c1 plus c2 into x oo ku dhacsan e power 3x haddii maanta ka waran saddex value ama afar value kala duwan helin maxaa samayn lahayn c2 meesha ku ekaysiina c3 aan ku dar lahayn x ka laakiin square ka dhig lahayn c4 ku dar x cubic ka dhig qaabkaas ku wadiya macnaha okay qaabkana ku xalin doonaa let's do one more example labaad oo kale inta hadda isku dayno kale waxa weeyaan oo kale d cubic minus 4d square plus 5d minus 2d y amtanaysanaa oo kale ladaas read in symbolic form waxay noqonaysaa markaas d cubic minus 4d square plus 5d minus 2 whole into y is equal to 0 kula mid tahay marka next step maxaa waaye auxiliary equation ka marka auxiliary equation waa maxay d cubic minus 4d square plus 5d
minus 2 waxay kula mid tahay 0 marka minus 0 intaad kula mid tahay steviga marka intaad dir soo gargid marka okay waxaan taabanaa mode then waxaan leenahay number 5 then waxaan leenahay number 4 then waxaan leenahay marka d cubic oo geliso maxay waa 1 maadaama powerkan oo cubic uu ka bilaabanayo saddex solution oo kala duwan ugu baahanaa steviga marka minus 4 plus 5 minus 2 maxay noo soo baxay marka fiir marka waxay noo soo baxday 2 no let me enter the scientific again qiimo kala duwan isoo saaray d cubic oo geliso maxay waa 1 godka xog waa minus 4 godka xog waa plus 5 godka xogana waa minus 2 then waxay noo soo baxday marka no sometimes scientific error dhici karo aan ku celina marka leh number 5 okay waxaan leenahay marka powerkan ma ka bilaabana 4 oo ka bilaabana waa 1 minus 4 plus 5 minus 2 then maxay noo soo baxday marka 2,1,1 2,1,1 ay noo soo baxday marka exactly ya marka example equation yani solution kama tahay sana marka waxa weeyaan yani hal xabo kamida qiimo gooni uu leeyahay laakiin labada kala qiimoodu uu ka duwan yahay waa isku mid macnaha laba qiimo isku mid ay noo soo baxday marka waxaan leenahay marka yc into x kan wuxuu la mid yahay marka mid ka hore marka 2 ah si qeexan u soo qor kaligiis marka ruulanka adigu u raacaysid macnaha ruulanka hadii aan u raacno marka muxuu noqonayaa marka c1 e power 2x c1 e power 2x plus alla marka c2 iyo c3 waa jamcinayna marka c2 c3 u jamcinayna waxaan leenahay c2 plus c3 into x whole power e power x whole ku dhacsan e power x qaabkana ku xalin doonaa marka mas'aladeena marka okay qaabkaas ayaan ku xalin doonaa let's do one more example kan aan raacina marka okay مثلا waxaan haysanaa oo kale meesha mid oo doqoshan ugu yaraanay aan page ku qorano tusaale waxaan haysanaa oo kale 8y triple dash minus 36y double dash plus 54y dash minus 27y waxay kula mid tahay 0 qaabkan oo loo qori karaa mas'alada yani y dash waxay kula mid tahay y triple dash oo kala jirtaan dib oo kale it means d cubic y by dx cubic oo 8 horgalo ah minus 36 y double dash it means d square y by dx square plus 54 dx by dy minus 27y waxay kula mid tahay 0 yani labada qaab waa loo qori karaa macnaha okay waxaana marka aan diyaarna marka u reeso marka symbolic form aan u diyaarna marka symbolic form waxay noqonaysaa marka 8d cubic minus 36d square plus 54d minus 27 whole into y waxay kula mid tahay 0 this symbolic form kaaga weeyaa macnaha tan symbolic form ka tuurin marka auxiliary equation ka aqoon marka waxay noqonaysaa 8d cubic minus 36d square plus 54d minus 27 waxay kula mid tahay 0 halka marka taagantaa marka steviga gelinayna marka okay waxaan leenahay marka equation then for cubic marka yani maadaama cubic ay haysan waxaan karnaa anaga saddex solution oo kala duwan aan karnaa macnaha anaga saddex solution inoo soo saaro horgalaha marka waa maxay marka d cubic marka waa 8 horgalaha d square waa meeqa waa minus 36 horgalaha d waa maxay waa 54 horgalaha y kaliya horgaladeena waa meeqa waa 27 oo minus 27 I mean then waxay noo soo baxday marka in yani auxiliary equation uu kula mid yahay marka 3 by d dan maxay noo la mid tahay 3 by 2 comma equation ka yani marka يعني solution kale uu ku sii laayaa marka solution kale hadii uu ku sii waay it means 3 by 2 saddex mar soo laabanayso marka 3 by 2 so marka xal kadib marka maxay noo soo baxday marka saddex mar ayaa wax noo soo baxay 3 by 2 sidee marka u qori karnaa marka complete solution kaaga marka complete solution kaaga waxaan qornaa marka yc into x okay oo kula mid ah complementary factor kaaga oo kaliya toom roo kugu celiyay yani bi maadaama aan yani maanta bi ma soo heli karno because rx ma haysan mas'aladan waa homogeneous non homogeneous ma aha macnaha maadaama equal to 0 ay tahay cf oo kaliya solution ku heli doonaa haddii laakiin meeshaan qiimana la siiyo waxaan ku heli doonaa cf plus bi okay halka marka loo taaganta waxaa leenahay marka c1 plus c2 into x plus c3 into x square whole maxaa ku dhici doona marka e power 3 by 2x ku dhici doona marka then marka halkaas ayuu solution ka noogu eegaya marka that is all. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.